labada muraayadooda hore u degsanaa telefoonkiisu ku hadlay ciidana ma saarayn waanu salaanay uu dhaaf waa markuu ka baxay magaalada ka baxay saasoo markuu aan baxay halka haduu mareeyay diyaarada saawtimi bay diyaarada saddexda ka taal ku dhufatay kii koowaad markay ku dhufatay dadka reer miyiga anigu aan la hadlay sheegeen uuro iyo waxba meesha isku xidhay kan labaad markay ku dhufatay gaariga midabkiisu cadaan ah waa muuqanayay gaari raafa booto kuwa suuqeeda afar daaqadoodka ah wuu olayay gaarigu waa markii gantaalka labaad ku dhacay kan in yar roo karaaray inuu isla rogayay ideen uu soconay dadka ma kala garan karaan kan saddexaad cabaar bay u kaalisay markay aragtay ololku inuu wada qabsaday ay ku baabiisay day waxa ku filayd ninkii inuu hubaysan maaha ciidan ma wato staff ma wato yeeris loo yeero oo de lala hadlo oo ama la xiro de haduu kiis ku jiray haduu kiis ku jiro haddii waxa dadku soo siyaadey ay tahay intaas يعني قالوا عيل بوتوغي الشركه laga yimi xitaa hadii Umar uu kiis galay baran buu ku socdo ciidan baa jooga ceel buu ka tago ciidan baa jooga gaari kaliya laga soo hordiraa ku filaa ya haduu dambi leeyahay laakiin in saddex gantaal lagu dhufto waxa ila ku culus oo aan waligeed dhulkana ka dhicin weeye Umar hadii waxa ku ogeed Puntland ya oo aman argagixiso aman xiriir u la yeeshay ama lama noocaasa asbuuci de wuxuu joogay ka horeysay Boosaaso madaxweynaha wada fadhiyeen waa wada shirayeen intuu Abu Raacmar nin miyi ay joogi jiray ma hayna dalka ka maqnaa waligiis Soomaaliya joogay waxa laga soo yahay waxa weeye Umar waa dhintay maanta soo dhiman lahaa garbi baa loo adeegsaday oo dilay shisheeye عند أمرك بحسين وحوي حكومة بوتلان أنا قلت أنه كل يتجرى كرنه إذا تاكل هذا منه دوران منه يعني برنامج كذا كجيل منه حنقول هنا حوي يحلو ودل عمر وأنت أكو قرب صديق إنه قلفته إن الله شيء أفكر حكومة أنت القدم يا حوي عمر وحنا كل اللي وحى صوها وعضين كذا لو أنا كهربنا وحكم صاير ما كان سكوت هذلين waxa ugu cuslayd arinta ergaabo arinta labaadna waxa la yiri macaantaasi al khulaasa min Allah isku afgaran Sayyid Abdullah Dani iyo Ciro heshiis ku yihiin dadku inuu ergaabo ku noqdo iyada nabad ah iyada nabad see maxaa lagu jeedaa xabadina aan ka dhicin dadkana bariye lagu geeyo la yiraahdo dadka masaakiinta guryahooda iskaga soo noqdeen iska daayay bismillaahir rahmaanir rahiim kulantii waxaan oo wanaagsan daawadayaal كليبكن أما ورئيسكن وحايجوا هليا أو أنو دعوين دورة كفلان قين دونا مدن أبوان عبد السلام أحمد حسن وعلم دولة قرنوجي أبوان صاروا بالمركو جوه الرئيسة تقين تكرر عضي علم عقلك وكنا فواي حاول قدام بيه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وحنا سلام يا أمد الصومالية ملك استايتشوكتو inta muuqaga magacay garanaysan inta aan garanaynba mar labaad waxaan salaamayaa wariye Qaasim waan dhawahay Qaasimo ina adeer dhacdadaas inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun tacsiibtii raanyele baan ka dirayaa horena waan uga diray geerida xanuunka iyo taabashada leh ee nabadoon Umar Cabdullaahi Cabdi Ibraahim arintaas niyo warin la yaab leh oo culus weeye nin caaqila oo beela caaqilkooda oo nin culus oo wax yaqaanka umada wada iska maraya waan cidina la socon in diyaaradinta ay u timaado ay ku dhufato saddex gantaal oo loogu tala galo tad adigu qaasin oo dhulka ma kala taqaanid ninkan meesha uu ka baxay waa cilmi meesha ku socdana waa baran waa masaafo in doora kala durugsan meeshaan u marayo jeecayo ma aha meel ateena leh meel markii reer guuraan lagu ogaana may ahayn waxaa loogu tala galay qaabku sidoo u dhacay sida aniga aqliyankayga aan ka helayo wadada aadu irmaan maaha wax laga yaabo 3 cisho in gaari maro gabigeedaba waxaa loogu tala galay inta dambas laga dhigo aan birtiisa iyo boolkiisa gaariga la arag hilbada iska daay in dambas kala dabayshu qaado waa sida aniga ay muuqatay qaabka loogu tala galay saas ahaa waayada dambe loo ogaado wixii lagu eedeynayo markaas loo sameeyo Umar safarkaas ku jiray duhur buu ku sii tukaday magaalada ceel buusaday la sheegay
anigu de faamilada ugu dhowbaanahay wuxuu ahayb ahaan wuxuu la xidhiidhay reerkiisii wuxuu yiri waan soo socdaa oo baran degan nimanan aad ugu kalsoonahay Soomaaliduna aanay been ku aqoon oo nimanka xirta qaadiriyada timo weynta aba waxay degan yihiin magaalada Koonaheeda nimankaas rag culimo oo kamid waxay yiraahdeen halkaas aan isla taagnay ninkaas magaalada ka go'ayeen moogtahay labada muraayadooda hore u degsanaa telefoonkiisu ku hadlay ciidana ma saarayn waanu salaanay uu dhaaf waa markuu ka baxay magaalada ka baxay saas oo markuu aan baxay halka haduu marayay diyaaradda saawtimi diyaaradda meel ay ka timid mid daba socotay xagee ka kacday see ku sahansantay iyo diyaaraddan wax la leeyahay asbuucii hore oo dhan waxay ku wareegaysay baran ilaa ceel bilaa soonaha aad bay uga cawdeen reer ceel bilaa saxaafadda ka sheegeen meesha state ba maamulo oo hadeer jooga Puntland la yiraahdo way gaareen fariimuhu oo wax la yiri diyaaraddan ugu dul wareegaya wax jawaab laga helin dabadeedna isnikaas oo safar ah bay diyaaradda saddexda gataal ku dhufatay kii koowaad markay ku dhufatay dadka reer miyiga anigu aan la hadlaysay sheegeen uuro iyo waxba meesha isku xidhay kan labaad markay ku dhufatay gaariga midabkiisu cadaan ah waa muuqanayay gaari raafa booto kuwa suuqeeda afar daaqadoodka ah wuu ololayay gaarigu waa markii gantaalka labaad ku dhacay gantaalka in yar roob karaaray inuu isla rogayay ideen uu soconay dadka ma kala garan karaan kan saddexaad cabaar bay u kaalisay markay aragtay ololku inuu wada qabsaday bay ku baabiisay gaarigii si fiican u ololay si aan meesha waxba uga bixin caasto dhacday markii badee wiilal ku hadla afka xukuumadda Puntland ba meediyaha soo dhigay in Umar la dadka iyaga ugu horeeyay kabtan Ayuub iyo Jibriil Qoobe iyo warag la yaqaan sida ay hadlaan iyo cid ay hadlaan qoraaladoodina de waxa dirmaan bay ka sheegayeen ma ay meediyaha yaalin abeesa weyn baa dhimatay iyo al-shabaab buu ahaa iyo daaci waxa dawladda qorayay ogaayeen meesha looga yimi iyo qiraal ku yihiin bay daaniga igu muuqanaysay arrintan cid baa la socotay intaadan ka gudbin arrintan waxa uu cadeyn karaa cid la socotay iyo arrinta cid la socotay ninkaas dadkii ceel bula ma sheegin dadkii raqda yimina ma sheegin raqdi soo ma guban oo ma baabino gaariga digadeeda maska gaariga qaabka loogu talagalay inuu gubto uma guban birihi waa ku inoo muuqanayay ninka hilbihiisina oo intan gardaadka ah iyo lugihii iyo madaxii oo burburay oo jabay deenta waa la hayaa laba qof la fahoodna te intay tiraligiin waa la yaqaan qofna waa la yaqaan DNA waa la qaaday hordhiciisa waa tii saraakiisha ka hadlayeen wax la yiri waa qof kali ah DNA looga dan leeyahay bal in laba DNA laba qof noqdaan jawaabihiisi cadayntooda anigu ma hayo laakiin hordhici kolba siday ii sheegeen ay ka hadlayeen nimanka saraakiisha الدبتلا وكبتلا شقية دماغ عتله waxay yiraahdeen kaligiisu waxa niyahow diyaaradda inta iska soo gasho meel cid iska duqeyn kartaa ma jirto meeshaas asbuuci dhawaaba loo magacaabay degmo Puntland ah maamuladii baa ka hawlgelayay iyagii baa joogay diyaaradda inta iska timaado oo meel kale ka timaado duqeyn kartaa ma jirto diyaaradda waxa lagu ogyahay imaaraadka waa say joogan سيد عبد الله الدنيا بكامر قاتان داعش بالغو قراعة والغو لدقالما دول لغو أبيه مالك لو ديارة قاسر وكي مكرتها مجرتو ميضا بعض نين كان انتان نوكا قاني نبضون كا إمام صاحبنا هاي وادرنا نقول بيقنا هاي أنا كي نادر كي شناد بعد لين كان ونبضونها عبد الله الله ونحرسته هي لك لو بدلنا وانو هاين درسنا وانو هاين حق قريح اسكو مساجد وانو هاين ولقا نكن انتان كاقانين عبادة بدن بوح وحو أهانين وحاول برنبت قليلة كوريسية وآضو نبت شعلا وحو أها تيرارك إلهي مركا لغاية مادو أمر كيسا وكنت تاقاني هاي قبرك السناك نبت قليليس لفنا بربوها وحو أهانين آن لوغا مارمين أرين كستو ريرك يقوليه هذه مركا وفو يسوي قيمة بدن بحرات ديلي كرام موقتها اسكو ابن آدم بدأ انت عليك والقياس كرام لكن قف ابن آدم علم قياس كرتو
cumar haddee waxa ku ogeyd Puntland ya oo aman argagixiso aman xiriir u la yeeshay ama nidaam noocaas ah asbuuci dee wuxuu joogay ka horeysay Boosaaso madaxweynaha ay wada fadhiyeen waa wada shirayeen intuu Abu Raac Cumar nilmi ay joogi jiray ma hayna dalka ka maqnaa weligiis Soomaaliya joogay weligiisna Garowe iyo Boosaaso iyo Hargeysa joogay marka inta laga yimaado waaweyn goboladana baran ama ceel buladaas midun joogay hadduu afrayo la shaqeeyo tagi jiray inta maamulo iyo dawladda ka jiray dee waxa ku filayd ninkii inuu hubaysan maaha ciidan ma wato staff ma wato yeeris loo yeero oo dee lala hadlo oo ama la xiro dee hadduu kiis ku jiray hadduu kiis ku jiro haddii wax hadaf soo siyaadi ay tahay intaas yani ceel buu joogay shirka laga yimi xitaa haddii Cumar uu kiis galay baran buu ku socdo ciidan baa jooga ceel buu ka tago ciidan baa jooga gaari kaliya laga soo hordiraa ku filaa ya hadduu dambi leeyahay laakiin in saddex gantaa lagu dhufto wax ila ku culus oo aan weligeed dhulkeena ka dhicin weeye nin weyn wadkiisa waa yaqaan Soomaalidu ku mahmaadaab waan hadda heladii tihiin saaxiib dhow iyo dhaliyana tihiin maxaa ila ah oo ila hadda la sheegi karaa oo laga raacay nabadoonka annagu wax laga raacay oo raad ah oo aan sheegi karno horta garan mayno waxaa jiray shir Boosaaso ay isugu yimaadeen Saciid Cabdullaahi Dani iyo odayaasha Maxamuud Harti ama deegaankaas waxaa la leeyahay waxaa laga wada hadlay sidii loo qaybsan lahaa ma wati arrimaha waqooyi bari iyo ay kiciyeen sidaas ayuu ku casumay odayaasha Saciid isaga oo muujinaya sida anaga noo muuqanaysa markii dadku reer Puntland yihiin dadkii hadday u tageen odayaasha ahaa ee kala hadlay kolba saabi qaybsi laga wada hadlayna dadkii kala hadlay Cumar Lamburuhu ahaa waxa hadda suuqa aad ugu jirta Saciid wuxuu kala hadlay macdanta Almadow oo imaaraad iyo nidaam noocaas u dhaqanka kala hadlay arrinta la isku afgaran la ku yiri waa warka anagu ma joogin saxaafadina ma joogin cid anigu kulli aan ka wareystay oo gaar oo ku yiri Saciid muxuu idin kala hadlaynaa oo goob joogayd haddaan kala hadlay dinu waqooyi bari jooga baan ahayo markii nabad ay ahayd hore intaan Cumar la dilin layma galgaal bixin laada kuntu ku fiican yahay wasaas wax kasta ay nimankaas ku wada hadleen waxa ugu cuslayd arrinta Cergaabo arrinta labaad waxa la yiri macaantaasi الخلاصة من الله اسكو ما أفكران waxaan anigu markaa wax kale oo isqabada sidee ka damacsanayd xukuumaddu inta laga og yahay arrinta Cergaabo iyo arrinta macdanta labada arrinta Cergaabo waxay ka damacsantay oo aan qarsan oo Saciid Cabdullaahi Dani iyo Ciro heshiis ku yihiin dadku inuu Cergaabo ku noqdo iyadoo nabad ah maxaa lagu jeedaa xabadina aan ka dhicin dadkana bariye lagu geeyo la yiraahdo dadka masaakiinta guryahooda iskaga soo noqdeen iska daayay de waa sida Saciid saas u sheegay horena waa u yiri hadii wala taagay annaga idinka baryayna nimanka Soomaaliland kala guriga ku noqdo annaguna wixii ay rabaan baanu kulanahay walaalo heshiis kulanahay markaan kelmad kaftana kugu darana qaasinow nimankan aan walaalaha nahay waafka waan ku balaariyo ma jeerteen walaal dhaba male oo la dhashay hooyo iyo aabatoona walaal male waxay walaalayihiin nimanka Soomaalida sidaa u eegaano sanadka reerkiisa yiraahdaan way qaadan karaysaa sanadkaas walaalkood dhashaa marka sanadka waxay walaalayihiin sanadka qolada isaaqay walaalayihiin deynta ahaan doonaan garan maaye sanad ugaadeen bay walaalayihiin sanad abgaal bay walaalayihiin sanad habargidir bay walaalayihiin sanad ulbahantii walaalayihiin adigu kulliba sanadkan maanta walaalkooda cusub waxa uu heeyay waa hargeysa beesha sheegi maayo waxa sheegta siyaasiyiinta edalka muuqata boogtahay aad iyo sanadka Soomaalida ay sheemariyaan reerkaysa walaalkii bay ka qaataan waxa nimanka waalaha yanaga ka maslaxayna idina meesha ku noqda saasi ka aaminsan waa sax macdanta waxa buruuf oo og yahay sharaa'ig baa la keenay Boosaaso sharaa'igaas waxa la leeyahay waa imaaraad waxa la doonayaa in macdanta Almadow iyo Almiskaad
la guro imaaraadka la guro annaga waxaan ka aaminsannahay calmiska dagaal xun baa ka socda ciidamada Puntland ay kula jiraan daacish xilli macdan hadeer la geen karo ila ay safowdo ama sharaa'igtay kala duwan muuqato calmadow waxa jooga macdan baa taala dad baa ka shaqeysta dahab la yiraahdaa oo bay qotaan waa sharaa'ig waa wax walba waa dad yacni dadka deegaanka ah ma reer barnaamij ha noqdeen ama reer baas ha noqdeen ama reer laas ha noqdeen waa dad deegaanka waa dadka hartiga ah baa iyo cid kale raacdaa waa ka shaqeystaan dadka inta laga saaro in sharaa'ig la keeno oo dhulkan la dilaaciyo dadkan laga saaro baa la wadaa baa leeyahay Saciid waxa yiri wuxuu yiri nimankaas ay meesha ka saarayna oo warkada ku turugteenta odayaashii la hadlay waxay yiraahdeen horta taa ka soo jeeso horta bal calmiska tii taasa oo fi ka furan tahay niintaan ka ogahay waa intaas laakiin waxaan goobjoog ka ahaa ma jiro deegaanka xalay waxa hadlay cuqaashii ugu cuslayd beesha waxay qabteen 24 saacadood inuu kaga soo jawaabo Cabdullaahi Dini 24 kadib ma dhamaan weli jawaab ma helin iyadoo waxaan ka warsugaynaa wixii laga soo jawaabo laamaha dawladdu haddii Saciid ka soo jawaabay haddii aan ka soo jawaabina arrinta taladeeda anigu hadda wadaga arkashaarkiisu weelkaastaa waan baxayaa arrinta taladeeda waxaan isugu tagaynaa dalayr baran tala buuxdo aan ka yeelanaynaa laakiin laamaha dawladdu qaar baa hadlay boolis ana ba arkay ka hadlaya oo le marxuumku kaligiibu ahaa xogta ugu badan ee hadda afka dawladda laga sugayo ama qalinkeeda laga sugayo waa maxay waxa laga sugayaa waxa weeye Cumar waa dhintay maanta soo dhiman lahaa garbi baa loo adeegsaday oo dilay shisheeye ah cid amarka bixisayna waxa weeye xukuumadda Puntland anagu inta aanu kulay garan karno iyo taa ka wada hadlayno de oran mayno barnaamijka ka gelimayno waxaan ku doonayaa waxa weeye wixii lagu dilay Cumar oo inta uu ku galabsaday in lagu dhufto in loo sheego afka xukuumadda inta laga doonayaa waxa weeye Cumar waxaan ku dilay waxa soo ahaa oo cadaynteeda la waan ka rabnaa laahayniyo arintaas waxay dhalisay culays aad u badan dib waxay ka noqon doontaa Ilaahay bay ku maqan tahay laakiin hadda siday u muuqato in laga diyaar garoobo waxaasu iyo wixii ogtooni inaan soo noqon un bay noqonaysaa talaan la isugu tago